السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواada xubintii wararka ciyaaraha oo aynu ku soo qaadan doono ciyaaraha adag ee caawa loo balansan yahay koobka horyaalka kooxaha Yurub ee loo yaqaano magaca Champions League hadaynu ku bilowno dhankaas iyo Group E kooxda haysata Champions League ee Liverpool ayaa habeenka caawa ah wajahaysa kooxda reer Austria ee Red Bull Salzburg Reds ayaa ku jirta kaalinta koowaad ee Group E waxayna u baahan yihiin hal dhibic si ay u soo baxaan Jurgen Klopp ayaa warbaahinta u sheegay ka hor kulankan aadka loo sugayo cid waliba way ogtahay inay tahay ciyaar kama dambaysa annagu waxaanu nahay kuwa u soo diyaar garoobay arrinkaas Salzburg waxay ku khasban yihiin inay garaacaan si ay u soo baxaan wuxuu kaloo intaa ku daray taas macnaheedu maaha inaanan filayn inaanu soo baxno balse waxaan filayaa inaanu ciyaari doono ciyaarta ugu fiican ee aanu ciyaari karno ciyaaryahanka khadka dhexe ee Liverpool Adam Lallana ayaa isagu kulankan dhaawac ku seegaya laakiin labada laacib ee Dejan Lovren iyo Gini Wijnaldum ayaa ku jira liiska ciyaartooyda u safartay Austria Liverpool oo bishii June ee la soo dhaafay 2-0 kaga adkaatay kooxda Spurs si ay ugu guuleysato Champions League-oodii lixaad ayaa haysatay fursad ay ku soo baxdo haddii ay ka adkaan lahayd kooxda Napoli balse nasiib darro iska lumisay fursadaas haddii kooxda Salzburg garaacdo Liverpool Reds ayaa u baahan in kooxda Genk ka adkaato kooxda reer Talyaani ee Napoli taasoo ku jirta kaalinta labaad ee groupkan kala sarreynta groupkan ayaa hadda ah Liverpool ayaa hoggaanka ku haysta 10 dhibcood halka Napoli oo ku jirta kaalinta labaadna ay leedahay 9 dhibcood Salzburg ayaa 7 dhibcood ku jirta kaalinta saddexaad halka Genk oo iyadu hore u hadhay ay leedahay 1 dhibic oo kaliya kooxdan reer Austria ayaa hadda hoggaanka u haysta horyaalka Bundesliga dalkaasi iyagoona sidoo kale dhaliyay 87 gool 24 kulan oo ay tartamadoo dhan ciyaareen waxaana 28 kamid ah goolashaas dhaliyay da'yarka mashiinka ah ee la qaban leeyahay ee Erling Braut Haaland isagoo kaliya saftay 21 kulan Group H ayaa isna wali aan lagu kala bixin iyadoo kooxda Chelsea ay soo dhaweynayso kooxda reer Faransiis ee Lille Blues ayaa u baahan guul si ay u soo baxdo haddii ay si barbaro gasho waxaa laga maarmaana in kooxda Ajax ee hogaaminaysa groupkani ay garaacdo kooxda reer Spanish ee Valencia daafaca reer Jarmal ee Antonio Rudiger ayaa la filayaa inuu soo laabto kadib markii uu ku soo laabtay tababarka kooxda aad baan ugu faraxsanahay inaanu dib u helno khidmadaha xidigan tababaraha kooxda Chelsea ee Lampard ayaa warbaahinta u sheegay ka hor kulanka caawa Chelsea ayaa caawa rajaynaysa inay soo hayso guusheedii ugu horeysay ee Champions League ee ay ku ciyaarto garoonkeeda Stamford Bridge tan iyo sanadkii 2017 iyagoona iska lumiyay fursad ay ku soo bixi lahaayeen ciyaartoodii ugu dambeysay haddii ay ka adkaan lahaayeen kooxda Valencia balse ciyaartoodii ayaa ku dhamaatay barbaro 2-2 ah Lampard oo aad uga niyad jabay sida kooxdiisa looga dhaliyay 3 gool ciyaartii Everton ayaa sheegay in Antonio Rudiger uu eg yahay mid taama Fikayo Tomori ayaa ciyaartan seegaya iyadoo sidoo kale aanu ciyaari doonin weeraryahanka Olivier Giroud Lampard ayaana da'yartiisa ku amraya inay isku muujiyaan ciyaarta isagoona warbaahinta u sheegay waanu jecelnahay cadaadiska naga saaran ciyaarta haddii aanu rabno inaanu wax weyn ka sameeyno kooxda waa inay jiraan habeeno badan oo sidan oo kale ah mar wax laga weydiiyay qorshayaashiisa suuqa kala iibsiga kadib markii laga qaaday kooxda xanibaadii ka saarnay suuqa ayuu yiri taasi waa arrin isbedbedel badan sidaa daraadeed ilaa hadda maan go'aansan cid aan idhaahdo hebel baan doonayaa iyo hebel baan doonayaa sheegay ugu dambeyntii gruupka dhimashada ee F ayaa wali xiisiisu yahay mid taagan iyadoo kaalinta koowaad ay cadeysatay kooxda Barca ayaa tartan darani wuxuu ka jiraa cidii kaalinta labaad ku soo bixi lahayd kooxda Inter oo caawa soo dhaweynaysa kooxda Barca ayaa farqi 3 gool ah kaalinta labaad kaga haysa kooxda reer Jarmal ee Borussia Dortmund taasoo caawiyana dhankeeda soo dhaweynaysa kooxda Slavia Prague ee ka dhisan wadanka Jamhuuriyadda Czech labadan ayaa midkood ku soo baxaya guul haddii ta kale aanay guuleysan haddiise ay dhacdo in labada kooxoodba ay guuleystaan waxaa soo baxaysa kooxda ku sarreysa dhanka farqiga goolasha xidiga reer Argentine ee Lionel Messi ayaa ka maqnaan doona ciyaarta caawa kadib markii aan lagu soo darin shaxda kooxda u safraysa magaalada Milano sababta loo nasiyay ayaana lagu sheegay si uu ciyaaryahanku taam ugu noqdo ciyaarta ay Sabtida kooxdiisa iyo Real Sociedad fooda isku darayaan
intaas waxaan kusoo afmeeraynaa xubinteennii wararka ciyaaraha. fadlan daawada ha ilaaw inaad like saartid fiidiyowga sidoo kalena aad sii sheer garaysid. waa inay ismaqal dambe oo xiiso leh.